qiso dhab ah. Gabadh dalka Mareykanka u dhalatay oo islaantay waxaa ku dhacay cudurka kansarka. Gabadha u dhalatay dalkaasi Mareykanka oo ku noolay dalka Suuriya waxay ku qanacday Islaamka wayna qaadatay diinta Islaamka ee macaan. Muddo kadib waxaa ku dhacay xanuunka kansarka oo ku faafay jidhkeeda dhammaan. Baaritaan lagu sameeyeyna waxaa soo baxday inaysan rajo ku lahayn nolosha, dhowaanna ay dhiman doonto. Waxaa ogaaday qoyskeedii oo ku yidhi, waxaa kugu dhacday cadhadii Rabbi, waayo diintaadii ayaad ka baxday, Islaamna waad qaadatay. Muddo kadib qoyskeedii ayaa ugu yeedhay dalka Mareykanka si ay baaritaankan aan ahayn ay u marto. Waxaase soo baxay mid la mida kii Suuriya, waxaana loo sheegay inay dhowaan dhiman doonto. Waxay tageen kaniisadda oo ay ku dhaheen dadkii, qofkii diinta Kiristaanka ka baxa sidaas ayaa u dambayn doonta, ogaada kuna cibro qaata. Way walwashay gabadhii, waxaanay go'aansatay inay ku laabato Suuriya ayna ku adkaysato diinteeda, islamarkaana halkan mawdka ku sugto. Habeen ayay fikirtay, markaasay tidhi, haddii aan sidan ku dhinto, dadka Islaamka soo gelaya way ka yaacayaan, waxayna moodayaan run, waa inaan Rabbi barya. Markaas ayay salaad u istaagtay ayna u jeclaysay, Ilaahayow kama baqaayo la kulankaaga iyo geerida, ee haddaan sidan ku dhinto dadka diinta sooma gelayaan, ee ha igu dilin sidan, diintaadana u gargaar. Subaxii markii la gaadhay ayay dareemi weysay wax xanuuna, baaritaankiina waxba waa lagu waayey. Dhakhtarkiina wuxuu yidhi, waxba ma qabtid. Way sujuudday gabadhii, waxaanay tidhi, Ilaahay marka uu shay doono wuxuu dhahaa noqo, wuuna noqday. waman yatawakkal cala Allaahi yajcal lahu makhraja. Walaal wuxuu dhow channelkan, subscribe-na noo saar mahad.